kulanti wacan asxaabay kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay maxaa ku cusub saxada kubadda cagta muuqaalkeena waxaanu ku eegi doonaa saaxiibayaal kulamadii caawa la ciyaaray horyaalada ee championka runtii Barcelona oo Bayern u jilacday guuldaro kale oo xanuun kula caawa la soo kulantay Liverpool oo natiijo xun dirqi ka badbaadiyay caawa Porto 4-0 lagu dhuftay Bayer Leverkusen oo 2-0 ku xasuuqday Atletico Madrid Tottenham oo guuldaradii ugu horeysay xilli ciyaareedkan la kulantay Inter oo 2-0 ku badisay iyo wararkii ugu dambeeyay muuqaalkeena intaana bilaabin saaxiibayaal like saarasiina share gareeysa asxaabadan oo gaadho hadday tahay markii ugu horeysay aan soo booqatana fadlan rukumo oo kambalelkan furo saad la socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqaaqa suuqa galibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdada marwaa soo dhawaada saaxiibayaal haddii ka horumarno kulankii caawa aadka loo xiiseynayay ee u dhaxeeyay Barcelona iyo Bayern runtii kulan aad u adag buu ahaa ciyaartu runtii waxay ku bilaabatay caawa weerar iyo weerar runtii kulankan ayaan daawanayay inkastoo kulamada kale aan gooskooska daawaday runtii kulankii Bayern iyo Barca ayaan wax badan kaga sheegi karaa runtii kulankaasi waxa uu ku bilowday weerar iyo weerar halfkii hore runtii waxaad moodaysay halfkii hore in yar khadka dhexe ay Barca ku yar awood weyneyd waxay u yara muuqatay kooxdaasi Bayern in ay isla weyday oo isla qabsiga kooxdu uu aad u hooseeyay halfkii hore Barca fursado badan waa iska lumisay fursado badan waa heshay sidoo kale Bayern waa helisay laakiin haddii eegno labada qaab ee labada tababaro kala ciyaarayeen labada kooxood waxay kala hayeen koox kubadeeda ku dhisnayn degdeg kubadda markii ay qabtaan ciyaartoyda Bayern waxa ahayd one touch ciyaartoygaas markuu soo qotad eegto mid kalaaba haystaba runtii way ku dabaqeen qaabka ciyaarsiga Bayern way adkeed in la fahmo qaabka ciyaarsiga anigu waxaan madaxa u ruuxay hadigii da'da yar ee Musiala runtii waxa uu ka sameeyay kulankani caadi ma ahayn khadka dhexe ee kooxdaasi Barcelona sagaas ka maamushay kubadda markay Bayern qabato oo kubaddaasna qabto degdeg ka kala loogu dhiibay hadii khadka xaloo turay kubadda waa jiidaya markaaba way joogtaa goolkaasi Barcelona runtii halfka hore xaaladdu waa adkeyd weerareen bahayd in wax natiijo laga bixin kareen halfkii dan markii la soo laabtay waxaad mooday Barca khalkhal ku yimaaday oo ciyaartoyda isfahanku yaraaday weerarkii kubadii ka go'een kubadii weerarka ay helayeen Lewandowski waxaan arkaynay kubadda khadka dhexe u soo doonaya runtii halfkii Lewandowski iyo Rafinha kubadda badan waa helayeen laakiin halfkii dambe waxa ku dhacday cuna qabateen Barca halfkii dambe waxa ka muuqatay in khadkeeda dhexe aanu joojinba lahaynba ciyaartoyga halka khadka dhexe kubadda ka soo qaatay Bayern si uu soo socdo waxa uu soo galay goolkaasi Barcelona runtii labada gool laga dhaliyay Black inkastoo mid uu madaxa ka kaalay kii labaad ee uu dhalinayay Lorisane kubadda halka laga soo bilaabay kubaddu halkii laga soo onkay waxay khadka dhexe kubadda cid joojisay waa la waayay laba baas war soo dhibay Sane baa loo dhibay sidoo socday goolku galay dhag dhinac buu ka dhigay runtii qaabkii ciyaarsiga Bayern caawa lama fahmi kareen kubaddu waxay ciyaareen Barca halfkii dambe fahanto labada gool waxa uu dhaxeeyay daqiiqada yar 49 minute ka kala saxay kotar 4 daqiiqo kaliya natiijadii ciyaartii lagu go'aamiyay runtii Barcelona way sadkiisay kubad qurux badan waa ciyaartay Barca kubaddeedu one touch kubad la taabanayo oo in la soo wareejinayo ilaa gool hayaha ilaa nin kubad fiican bay ciyaareen laakiin anigu mar labaadna waan ku celinayaa Musiala waxa uu ka sameeyay caawa kulankaasi anigu madaxa ruuxo da'yar aad u fiican weeyo mustaqbal leh runtii halfka dambe waxa loo yaqaan halfka tababarayaasha runtii aan waxa oran karaa kulankani Barca way ku qaldantay weerarkeeda Fati baa kulankani lahaa Fati 80 halku keenin kulankani ku soo inkastoo laacibkan oo looga baqayo inuu dhaawaco si degdeg ah ugu laabto oo Xavi uu isaga u turayo laakiin kulankani Fati waxa intii yar soo galay fursado abuuray halfka dambe horta way sixday Barca weerarkeedanu ay dhinaca kubadka abuur kor cadaadis badan baa lagu sameeyay runtii markuu kubadda weeraryahanka soo qabsado mar baa lagu siiyayo kubadda waa laga boobay laakiin waxyaabo ay dhinaca ka sameeyay Fati runtii kulankani gool Fati buu hayo Fati marka gool la waayo horta waa weeraryahan goolasha joogteyn kara macaal adigoo bedel ku keenaya waa weeraryahan goolasha joogteyn kara
kulankan haddii lagu soo bilaabi lahaa runtii gool la-aan kuma baxeen. Bayer waa ka dhaweysay go-aankeedii oo Lewandowski waa xakamaysay. Waxaan arkaynay daqiiqadii dambeysay xitaa in Lewandowski gool loo diidayo Kimmich uu kubaddu Lewandowski taabashanu harsanayd oo ka dullaadiyay. runtii caqabadna waxaa Barca ku noqotay garoonka oo sawaxan fara badan ka baxayay. qaab ciyaareedka Barca waa fiicnaa, isbedel waa ka muuqday, runtii kubad fiican waa ciyaartay, laakiin waxa saameyn ku yeeshay taageerayaashaasi iyo weliba kubaddii oo haafkii dambe isla bedeshay weji kala yeelatay. haafkii dambe Barca waxaa ka yara muuqday in yar oo wada shaqayn la-aan, laakiin markii Dion markii haafkii dambe lagu soo tuuray runtii isaguna waxyaabo badan buu ka saweeyo. kulankaasi khadka dhexe isbedel waa ku yeesho. Bayer buutii haafkii dambe la waayay, waxa uu ka qayb qaatay in kubadaha uu joojiyo, halka labadii gool ee horeba kubad jooji aanay lahayn Barcelona khadka dhexa oo kubad cid joojisa la waayay. saa marka loo qabtoba inanka goolhayaha Barca la soo taabanayay waxa uu ka qayb qaatay in kubadda joojiyo, farshaxan buu keenay, baalaha ka tuuro oo kubadda dhiso. runtii Dion aad ayuu khadka dhexe uga caabiyay haafkii dambe markuu soo galay, kubad joojinta iyo weliba baas bixinta. runtii anu Musiala leeyahay, runtii anugu kama haysan karo. runtii waxa uu ka sameynaya kulankaasi inaba caadi ma ahayn. kulankani wakaasi Bayerna Barcelona 2-0 bay kusoo dhufatay. kulankanna waa inoo hadhay sidii sanadkii hore home iyo away ka qaadan doontaa. sanadkanna waxay sabab noqon doontaa in horyaalka inay ka ciyaarto Europa League, bas sanadkan Barca waa isfardaamin doontaa. sidoo kale waxaan arkay Inter oo iyadu Victoria 2-0 ku dhufatay. Inter iyaduna waa soo dhawaato Barca iyo Inter 3-3 leeyihiin, inkastoo Barca ay kaalinta labaad ay ka hayso dhanka goolasha, waayo 2 waa laga dhaliyay Barca, 2na waa laga dhaliyay Inter, laakiin waxa lagu kala badan yahay goolasha la dhashtay. Inter 2 kaliya dhashtay halka Barca kulankii hore ay 5 soo dhashtay. markaasi haddii aan eegno kulankii caawa ee Liverpool, iyaduna runtii dirqi bay ka badbaaday in guultaro kale oo xanuun badan ay soo gaadho oo foomkii dhawaanaha ay ka baraneen guuldarooyinka xidhiidhka ay la kulmasay Liverpool. runtii dirqi ka badbaado Matip ay sugu daqiiqadii 88aad kooxdiisa Liverpool badbaadiyay. runtii waxaa leeyahay Liverpool guushanayso ay soo heshay caawa ee garoonkeeda Anfield ay ku soo heshay niyadda ciyaartoyda ayuu ka qayb qaadan doonaa. runtii daqiiqadii 16aad Salah baa dhaliyay oo baryahan goolashii laga laayahay ayaa kulankani gool ku turtay, inkastoo 10 daqiiqo kadib 16 loo jawaabay. runtii Liverpool waxaa ka yar muuqatay iyagana caawa israf la-aan, goolo fara badan waa dhalin kareen, ilaa 3 iyo 4 iyo waa ku badan kareen, laakiin dhanka isfahamka ciyaartoyda ayaad mooday in sanadkan aad u daciif yahay. laakiin dirqi waxay ka badbaaday in ay haddana dhibco ka lumiso iyadoo kulankii hore 4 lagu soo dhuftay oo ayaga kulankeeda waa soo badisay. haddii kulankanna la barbarayn lahayd xaalkeedu allo sahal buu noqon lahaa Liverpool. runtii waa isfardaamisay. Porto maxaa ku dhacay caawa? runtii kulankii horena daqiiqadii 90aad intii Braga keen waa tii Atletico Madrid ka dhalisay. caawana kaasi 4-0 yaa ku dhuftay Club Brugge baa ku dhufatay Porto, kooxdaasi weyn 4-0. runtii Porto waxaa muuqatay inaan sanadkani horyaal shuqul iyo shaqo ku lahayn oo gool hore bay sii dhiibayso gruubyada kooxaha yaryar ku dhuftaan Atletico Madrid garanay, laakiin ha ku dhufato Club Brugge 4-0 waa taas waxay caddeyn cad u tahay horyaalkan shaqo iyo shaqaltoona kuma lihid. Bayer Leverkusen ayaduna Atletico Madrid 2-0 habeenku waxa waaweyn oo xun. runtii kooxayntooda badan guuldarooyin baa soo gaadhay, bal Bayer Leverkusen baa 2-0 ku dhufatay Atletico Madrid. sanadkan iyaduna xaalkeedu waa loo sahlo. kulankii hore lahayd Portona daqiiqadii 90aad bay Griezmann ku baxsatay, 90 mu soconaya waa maya. Bayer baa 2-0 ku fartay. runtii waa taagteeda xilli ciyaareedkan iyo Atletico Madrid kulankii hore 3 dhibcood waa soo qaadatay, kulankana waa lumisay. groupkaasi waxa uu yahay group runtii aan loo kala baxayn, waayo koox kastaaba dhibco haysataa. runtii groupkan lagu kala baxayn ayuu eeg yahay. dhanka kale Tottenham ayadana la kulantay guuldaradeedii ugu horeysay sanadkani. Conte waxaa la kulmay guuldaradiisii ugu horeysay, runtii waa la barbar, laakiin weli gool noocan oo kale lagama gaarin.
Sport Lisbon ayaa iyaduna daqiiqadihii ugu dambeeyay 82 baa laga kala dhaliyay. daqiiqadii ugu dambeeyba ay natiijada iyaguna xaqiijisteen oo 2 gool saafi oo ay 3 dhibcood saafi ka qaateen kooxdaasi Tottenham ayaguna daqiiqadihii ugu dambeeyay ay ka gaareen kooxdaasi Tottenham sanadkan waa guuldaradii ugu horeysay runtii waa kacsayn kulankooda hore waa soo badiyeen horyaalka meel fiican bay marayaan qaabkooda iyo foomka ay sanadkan ku socdaan aad buu fiican Conte kooxda waa soo kiciyay saxiif fara badan ay sameeyeen niyada kooxda qaabka kubadda systemka loo ciyaarayo runtii caadi ma aha laakiin caawa wax si ka noqdayba daqiiqadihii ugu dambeeyayba leeyri maxaad haysan 3 dhibcood iska keena ayaa lagu dhaxdayo 3 dhibcood wad laga qaatay waan dheernay saaxiibayaal kulamadii caawa dhacay wararkeena waa naga taas saaxiibayaal intaynu kulmi doono wararkeena kale wassalaamu calaykum